السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسن دمان داودياشا قيمها iyo qadarinta mudano oo meel kasta aad naga daawanaysaan caalamka oo idil waa mar kale barnaamijkeeni faaqidaada cayaaraha oo alaaba uga barateen telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta uu ku leeyahay magaalada tan London sida intiina badan maanta daawanaysay telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaa ka dhacaysay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia cayaar adag ay isaga hor yimaadeen xulalka qaranka Soomaaliyeed iyo xulka qaranka dalka Ethiopia anagoo og in wadanka Soomaaliyeed muddo 20 sano burbur iyo dagaalo oo aafayeen ba haddana waxaa jiray isboortiga Soomaaliyeed in meel kasta oo cayaaro caalami lagu qaban jiray in ay calanka Soomaaliyeed uu ka dulbabanayay anagoo og in xiriirada Soomaaliya ka jiro ay laf adeeg iyo dhabar adeeg badan ay muujiyeen in ay isboortiga Soomaaliyeed marna uusan ka maqnaanin meelaha iyo goobaha cayaaraha ay ka dhacayaan waxaan ogsoonahay in dhanka kale qurbo joogta Soomaaliyeed ay ayagana isku hoolaan sida isboortiga Soomaaliyeed ay horay ugu horumari lahaa ayaga oo tartano badan ay qabtaan haddaba markasta oo aan ka qayb galno cayaaraha ayaa waxaa dhacdo in guul darro aan la soo hooyano guul darrada waxaa si dheer in goolal badan ay maaragtay xulalka ama naadiyada ay la soo tagaan marka waxaa isweydiin mudan maxaa dhacay maxaa intay wax ka qaldan yihiin bal si aan arrimahaas oo dhan u falanqeyno ayaan maanta barnaamijkan gaarka ah waxaan ku qabanay si aan maaragtay dad qabiirada ah ama maamulka wax kaga jiro aan ku casuunay waxa maanta barnaamijkayga marti igula ah Axmed Nuur Maxamed Xaashi oo ah ciyaaryahan Soomaaliyeed muddooyinkii barisamaadka u soo dheeli jiray naadiga Genyo ee LLBB haddana Axmed Nuur waa gudoomiyaha ururka mideynta qurbo joogta Soomaaliyeed waxaa dhankaygan kale iga fadhiya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka Olombikada Soomaaliyeed Duraan Axmed Faarax oo dhawaan ka soo noqday dalka marka ugu horeysa ku soo dhawaada telefishinka qaranka Soomaaliyeed barnaamijkiisa cayaaraha ee magaalada tan London sidaan wada ogsoonahay waxaa jiray tartankii israreebka cayaaraha adduunka oo ka dhacay dalka Djibouti wareegiisa koowaad xulka qaranka Soomaaliya iyo xulka qaranka Ethiopia maalintii Sabtida ahayd waxay ku dhamaatay ciyaarta wareegeeda koowaad eber sida dad badan maanta ay ka daawanayeen telefishinka qaranka Soomaaliyeed si toos ah waxaa magaalada Addis Ababa ka dhacay ciyaartii wareegeeda labaad waxaa dhacday in maalintii wareegeeda koowaad markii ciyaarta qaybteeda koowaad 1-0 ku dhamaatay kadibna 4 gool xulka qaranka Soomaaliyeed loogu awood soogtay markii la isku daro goolashana 5-0 ciyaarta ku soo idlaatay waxaan ogsoonahay inaad dhawaan ka imaatay mudane Duraan magaalada Muqdisho bal waxaad nooga warantaa inta aanan gelin ciyaarta iyo sida qaab ciyaareedka ahaa bal diyaar garowgi maadaama ogeyn in naadiyadii iyo ciyaarihii iyo tartamadii la qaban jiray muddo hakad ay ku jireen bal dhalinyaradan intee laga keenay intee laga soo aruuriyay say u imaadeen bal warbixin gooni ah bal naga sii bal بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله aad baad u mahadsantahay waan aad kaaga mahadcelinayaa fursadan wanaagsan ee barnaamijkan ciyaaraha macaawan ugu caasimteen tan kale waxaan jeclahay in aad iyo aad ugu mahadceliyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed sidii qiimaha lahayd maanta waxaan rajaynayaa ciyaarta sida live-ka ama tooska ay ugu soo gudbinayaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto taasoo macnaheedu tahay sidii ay u xiiseynayeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed kuwa dibadda ku jira jooga iyo kuwa gudaha jooga inay ciyaartan ay daawadaan marka telefishinka qaranka inuu u suurto geliyay ummadda Soomaaliyeed inay meel kasta ay jooga ay ka daawadaan barnaamijkaas runtii waxay tahay waa guul aad u wanaagsan oo la taaban karo oo waxaan isleeyahay waxaan rajaynaynaa haddii wax badan ayay sii dhiirigelinaysaa maanta waxaan hubaa goobaha telefishinada ay ku yaalaan ama ha ahaato maqaayadaha ama meelaha kale ha ahaatee
magaalada muqdisho iyo magaalooyin fogfog oo ilaa iyo Sydney iyo maxaa la yiraahdaa iyo New York iyo North America ba inay ummadda Soomaaliyeed ay tubnaayeen ay daawanayeen ciyaartaasna ay ka daawanayeen barnaamij maxaa la yiraahdaa telefishinka qaranka inkasta kala waqti la ahaa iyadoo la kala waqti duwan yahay ayaan rabaa in dad badan ay si fiican looga daawanahay haddii aan midda kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan maxaa la yiraahdaa aan isla joogno la fadhino maxaa la yiraahdaa odageena sportiga Axmed Nuur Maxamed Xaashi caawa isaguna laftigiisu ka soo noqday dalka America North America isagoo arrimaha sportiga aad ugu maqnaa runtii ayada laftigeeda waa fursad fiican bay tahay haddii aan usoo noqdo su-aashii aad weydiisay runtii waa sax waan ogsoonahay waddanka Soomaaliya 20 sano iyo 21 sano la soo dhaafay xaaladda ku sugnaa sida adigu waad u sheegtayna sportigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha yar oo maxaa la yiraahdaa sharafti iyo magaci iyo maxaa la yiraahdaa sumcadii magaca Soomaaliyeed intuu waddanku burbursanaa meel kasta taale ma si aad ugu sheegaysaa calanka Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka sportiga la isaga imaanayo uusan marna uusan ka maqnayn haddaan kasoo qaato kubadda cagta oo kale marka laga sheekeynayo wadamada anagu qaybta ka nahay oo Sikafa loo yaqaano East Central Africa 21 sano la soo dhaafay Soomaaliya waa waddanka kaliya oo ciyaaraha tartankooda aan marna ka maqnaan waxaa laga yaabaa wadamo dawlado leh inay dhibaatooyin kale iyo maxaa la yiraahdaa farsamo kale iyo maxaa la yiraahdaa fursado kale la-aantood dartood inay sanado ama 2 ama 3 sano ay ka wada maqnaadeen kulligood waxaan Soomaaliya ka ahayn taas marka waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed oo sportiga say ugu dadaalayeen in markasta maadaama waddanka uu burbursan yahay si aan loo dhihin Soomaaliya waa baabada calankeedii uma yaalo in maxaa la yiraahdaa aan laga maqlaanin meelahaas aan laga maqnaan haddana taas waxaa markasta ku xiran wisho waxaa jirta waddankii markuu burbursan yahay oo dagaal baan iyo baaba uu ka jiro wax badan baa la baaba'ay waxaa la baaba'ay garoomadii ciyaar sportiga lagu ciyaari lahaa waxaa la baaba'ay dadkii dhalinyaradii iyo talentigii iyo maxaa la yiraahdaa waddanka isaga wada qaxaya oo ka tagaaya sidaan wada ogsoonahay hadda kubadda cagta oo kale dhowr sanadood inuusan horyaal inaan la ciyaarin oo uusan jirin sanadkii ugu dambeeyay hadda ayaa la ciyaaray laakiin isagana waxaa lagu ciyaarayay meel garoon adigoo hadda gacmaha lagu falay oo maxaa la yiraahdaa la falay hadda la sameeyay maaha garoomadii loogu talagalay ciyaaraha aysan ahayn garoonka jaamacadda asagoo meel hawd oo dhir ka buuxdo ay xirugta isku xilqaameen ay u xaaqeen maxaa la yiraahdaa dhanka kalena ayadoo dagaalkiina maaragtay ka socdo dagaalkina uu ka socdo oo meesha garabkiisa uu ka socdo meesha markaas dhalinyaradiina halkaas ayay ku tababaranayeen hadda markii xulka qaranka ku tababaranayay iyo tababarka ku sameynayay garoonkaas waan tagi jiray marka subaxii markay yimaadaan duhurkii barqadii markii la gaarana meesha waa inay ka kala baxaan maxaa dhaca meesha qaad baa lagu iibinaya marka meel sports kaliya loogu talagalay maaha dano kale badan ka socda marka waad dareemi kartaa marka waddankaan la ciyaaraynay oo Ethiopia waxay ciyaartooydu leeyihiin maxaa la yiraahdaa horyaal joogta sanadkaas ciyaarayaan fursadii iyo facility iyo wax kasta u yaala qarankan hadda waxaa lagu leeyahay 3 bilood mise 4 bilood la soo dhaafay waxay ku xareysnaayeen Europe bay ku xareysnaayeen waddanka Jarmalka iyo tababar u joogeen ay tababar ku qaadanayeen si ay isugu diyaariyaan ciyaarahan iyo ciyaarihii Sarareebkii Afrika ba si ay isugu diyaariyaan annagana waxaan dareemaynaa dhalinyaradii waddankii oo si u kala go'an yahay oo maxaa la yiraahdaa aysan waddankii aysan ka jirin fursado ama maxaa la yiraahdaa sportiyo guud oo wada mideynayaan uusan jirin garoomadii lagu ciyaarahay aysan diyaarsanayn maxaa la yiraahdaa facilitieska iyo waxyaabihii kale oo qofka ciyaartooyga u baahnaa ciyaartooyga kaliya inta isugu yimaado la ciyaaro oo banuun waan darbeyn karaa maaha laakiin sportiga hadda wuxuu noqday waa profession haddii aan loo diyaarin qofka ciyaartooyga maskixiyan iyo jirkiisaba haddaan loo diyaarin iyo maxaa la yiraahdaa wax kastaba haddaan loo diyaarin haddaan u diyaarsanayn micnaheedu maaha inta la iska yimaado nasiib ahaan nasiib baan ku badinayna maanta waxaa laga dareemayay dhalinyarada way dadaaleen aad bay u dadaaleen waxaa sharaf noo ah inay maxaa la yiraahdaa waddanka Ethiopia oo saas ahaa markii lagu ciyaaray maadaama uusan gurigeena aan la tegi karin saas Muqdisho hadii lagu ciyaari lahaa waxaan isleeyahay inaan ka badin lahayn maanta maalinkii anaka first leg anaka home leg noo ahayd waxaan ku ciyaaraynay neutral ayaga neutral bay noo ahayd waa waddan dhexdhexaada laakiin haddii la fiiriyo Djibouti macnaha aniga maadaama waddan kale tahay haddana waxaan u malaynaa maaragtay dadka Soomaaliyeed inay waddankii waa sax waa dad walaalaheena waa waddankeeni oo Djibouti waddankeeni oo kamid laakiin way ka duwanaan lahayd maanta ciyaartaas hadii lagu ciyaari lahaa stadium Muqdisho oo difaasyaashii Soomaaliyeed oo kulligood dhalinyaradii oo maxaa la wada joogi lahaa stadium Muqdisho waxay la tahay inay taas ay ka bedelaan lahayd tan maanta waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu daran waxay ahayd waxa weeye moogtahay dad diyaarsanaa waxa weeye waa ciyaarta marka hore hal iyo bay ahayd waliba goolkii daqiiqadii ugu horreeyay la dhaliyay nasiib darro intii kale 3 daqiiqo ugu horeysay 3 daqiiqadii ugu horreeyay la dhaliyay marka intii ka dambeysay waxa weeye waxaa soo baxaya marka qofka saas usoo diyaar garowgiisii maxaa la yiraahdaa training ugu soo qaad waxa inay xoogaa ay daaleen dhalinyarada marka saas may waa mahadsan tahay aan kugu soo noqdo waxaan jeclaan lahaa inaa maarad faahfaahin naga siiso dhalinyarada meesha ka imaada laakiin kugu soo noqonaya bal ciyaartii maadaama aad guda gashay
waxaan siinayaa axmed nuur oo ahaa maaragtay dadkii daawanaya galabta sida tooska u daawanaya axmed maadaama aad tahay nin maaragtay ciyaaryahan ahaa garoonkana maaragtay garoomo caalami kasoo dheelay tartamaha lamid ahna maaragtay ka qayb galay bal maadaama aad fiirisay dhalinyarada aan ogtahay waxyaalaha maanta jiro iyo duruufaha maanta wadanka yaallo iyo haddana dadaalada socdo ma filinaysa maanta saan inay wax noqonayaan bismillah horta wixii hadal ahaa yani inteeda badneed horta waxaa qaatay gudoomiye xigeenka maxaan ilaha Mr. Duraan horta wixii hadalka intiis badan commentigii wixii miduu ka bixiyay tahay aniga yani midda hadda maanta dhacday kulley laba yaabaayo mid yani aan leeyahay weli guul inay tahay aan aaminsanahay tahay sababtay ku tahayna waxay tahay iyadoo dawlad aan nahay 68 waxaa dhacday Ethiopia inta la tegay 18 gool iyo 10 gool iyo 7 gool iyo 7 gool in iska dhalay waa dambe 72 anagoo kooxda jeeyay waxaan tagnay Ethiopia aan tagnay 3-1 mid ciyaartan ay noqoto marka waxaan ku sheegaa nalooga soo badiyay misaaqo nalooga soo badiyay intaba marka tajirtaa waxay tahay maanta iyadoo meeshii hadda dawlad aynan jirin oo maxaan ilahaa ilaa iyo muddo 20 sano iyo wax ka badan maaragtay mar walba hadda wadanka mid iska dhibaatay waxyaabaha ay ahaayeen يعني الرياليتي حق مركا وكعنا ما عرفت يعني سبورتس أنا فكرت هديبه يعني حتى ما أنت الصومالي حتى عيارة بدي كقيب جلس أي تاي بدي نقول أترنا إني تاي أو يعني ولي أي كبح المحل إلى شاشتي الدون كو عيارة أفريقيا لو قيب كله وعالم كمال البوكتا وعالم كمال الميدو كتاب مركا أنا يعني وحي إلى موقتها أرتا ودلال لكن أدي ترى أما أود كله الإسكندر سنة هو تشي يعني أنت كفعنات مد أي كفعنات لدينا تام مدك عليه dhalinyarada sida uu sheegay waa maanta garoon ay ku ciyaaraan iyo meel ay ku ciyaaraan dambe nimankan hadda waxa sida cada waxay tahay Jarmal ay waxay ku xariisnaayeen in muddo ah marka waxaan ku sheegay dadkaas dad isku standard noqon kara ma aha hatta hadii ay u helaayeen garoon fiican oo ma aragtay maanta kii wadankooda iska xaraar hadii aan lahayn wax dhan marka aniga la yaab ima leh aan ku sheegay arrinta iyada Soomaali kaaga dan hadii intuu burburka dhacay hatta Ethiopia mana ka badin Tanzania gudaheeda aan uga badinay 2-1 inay tahay marka hadii maanta Djibouti markii la joogo barbaraac ay noqotay midda kale hadii maanta Soomaaliya ciyaarahaas mid lagu qabtay noqonayd aniga iyana noqonaan lahayd yani isbedel weyn mid ay leedahay inta maanta waa aragtaa madaxda garoonka sida uu kacay markii Etoobiyaanka ay goolasha ay dhaliyaan waxay dhaliyaan anaga waa aan tagnay hadda ka hor markii goolka ugu horeeyay laga dhaliyay waa nusasnay nafteena yani sida garoonka dhaqaaqiisa ama wixiisa uu ahaa hadda waxaan ku sheegaa gurigaaga ku ciyaaritaankiisa horta waxa weyn waaye maartay guulkeeda ka ma la dhihi kara maanta haddaa macnaha markaa daawanaynay waxaan arkaynay in dad badan oo Soomaali ah oo magaalada Addis Ababa ku noolaa inay kasoo qayb galeen qaarkood waxaa aniga wiish ahaan qiirigeliyo oo indhayga soo jiitay waxaan arkayay gabdho ku labisan dareeskii calankii buluuga ahaa hataa maaragtay dhagdhagaha la xirto macnaha calankii buluuga ah marka waxa waaye waxaan u maleynayaa taageero maaragtay anaga ahaan xataa naguma yareenaan jeclahay marka taageerada uma yara laakiin waxaan u sheegaa dadkaas caalamka buluuga soo xigta oo meesha yimidiyeen ku cilqabin maanta badinta laga badiyay sababtoo anagoo dawladda waxaan ku dhahay dhibaato tan ka weyn mid ay noo gaartay ay tahay ku sheegaa anagoo yani maanta hadda og tahay meel lagu ciyaarayo midkoodna aynan jirin yani aniga la yaab ima yeelan kartaan ku sheegaa tan inkastoo yani ma aragtay haddana waxaan kugu sii daraa haddii meeshaan wada tashi ama nidaam yani ma aragtay xiriirka iyo wada socod iyo waxyaabo fiican ay jiri lahaayeen aan ku sheegay yani inay ka wanaagsanaan lahayd maanta systemka sida uu yahay laakiin tala gaar u go-an inay tahay aniga ay ila muuqataa marka waxaan rajaynayaa in xiriirkii inta laga ballaariyo oo yani ma aragtay mid wadatashi macnaha la isku xiro aniga hadda marka aan leeyahay yani xataa markaan gudoomiyanimadan ama waxaan aan sheeganayo macaanigeeda waxa waa yani nin yani waxaan isku keenaya ama midaynaan wadaa leh for example aan ku sheega ma caytami karo oo wax ma u sheegi karo marka taasna waa ku xujeysnahay waa gartaa umaleeya marka waxaan rajaynayaa ilaahay in isku xirkeena mid fiican intuu noqdo in maxaan ilaha arrimaha ayaga ahi sidii loo wada qaadaal dhigi lahaa inay noqoto maantana ciyaartooyda badintii laga badiyaa waxay noqotay markii hore halkii iyo eberkii ciyaar fiican ay ciyaarayeen si wanaagsan ay ciyaarayeen xilligii dambeetana waxaa meesha muuqatay maaragtay in ay daalaan dhaceen yani waa tabarbeelkana taasna waxaa keeni karaa dadkan isku level dad ama ay ahaa hore buu sheegay waxa kooxna Jarmalka ay ku xariisneed oo in muddo ay jirtay kooxna hadda waad garan kartaa umada yani meesha ay ka tiri aniga ku soo noqon doono Axmed Nuur waxaan jeclahay hadaladaada anoo wax ka dhimay laakiin waa kugu soo noqonayaa su'aal baan maaragtay insha Allah aan ka qabaa waxaan rabaa maaragtay gudoomiye Duraan waan ognahay maaragtay dhalinyarada awlka hore naadiyadii ayaa maaragtay tartano loo qaban jiray tartanadaas ayaa maaragtay dadka uga ciyaar fiicnooda laga wadi jiray
hadda sida aad hore noo carabaabday ma ayn jirin maaragtay wax tartamo ah marka laga reebo tartankii sanadka hore dhacay oo yaraa iyo tartanka ciyaaraha gobolada intaba wax maaragtay knowledge ah ama maaragtay ogaal xaggaaga ah ma ka haysaa dhalinyaradaas meesha ay ka kala yimaadeen runtii waa su-aal fiican waxay la tahay aniga kolba xiriirka hawsha ayaa la socda oo kubadda cagta waa ogahay laakiin adiga olympigaad waxaan wada dareensannahay maantay inay fursadaha jira wadamada haystaan kale iyo anagu sidaan haysana inay kala duwan yihiin inkastoo markastoo ay kuu badan yihiin ciyaartooyda aad haysato meel kasta ay jiraan ama grassrootska ama iskuulaadka ama degmooyinka ama gobolada ama meel kasta jiraan marka maxaa la yihahda ciyaaro oo guud ay ka wada socdaan way ku sahlantahay qarankaas inaad ciyaartooy badan oo fara badan hadashid hadda sidaan la soconno sportigii grassrootska badankiis inuusan jirin sportiga ama degmooyinka maxaa la yihahda degmooyin kooxalo sidooda u nidaamsan kii iskuulaadka jaamacadahii kii maxaa la yihahda goboladii maxaa la yihahda inuusan sidaas u jirin wax hadda cusubna ma ahan oo kolba waxay la tahay mar kastaba waagii xataa dawladdu ay jirtay kooxuhu waxay ka dhisnaayeen inkastoo la ciyaari jiray ciyaaraha gobolada kooxaha marka qaranka ku jira ama heerka koowaad waxay ahaayeen kuwa magaalada muqdisho ka samaysan ahaayeen markaas kabacdi iyaga laga culi jiray laakiinse iyagu waxay haysteen meelo ay ciyaartooydu ka keensadaan ama gobolada ha ahaato ama iskuulaadka ha ahaato ama meelaha lamidka ayay ciyaartooy ka heli jireen laakiin tartanka ciyaaraha gobolada waa tii lagu ciyaarihii gobolada waa la qabtay hadda anigu maalin markaan booqday meesha ku tababaranayeen waxaa laga sheegay ciyaartooy ilaa dhowr ciyaartooy kamid a kuwii gobolada laga keenay inay ku jireen ciyaartooyda qaranka loo soo xulay oo tababarka qaadanayay gobollo kala duwan ka yimid inay tartan ay ku jireen oo ka qayb qaadanayeen laakiinse waxaan mar kasta aan dareensanay haddii aadan haysan maxaa la yihahda horyaallo joogta oo waddan ka wada socda isagoo level kala duwan leh way adag tahay waddanka intuu ka ciyaartooy badan yahay ayuu ka fursad badan yahay inuu maxaa la yihahda ciyaartooy fara badan uu ka helo haddii ilaa iyo aadan haysan maxaa la yihahda ilaa iyo 10 kun oo ciyaartooy oo kala duwan oo levello kala duwan leh oo da' kala duwan leh mar kasta way ku adag tahay inuu qarankaas oo ciyaartooy fara badan oo wanaagsan helo laakiinse waxaan ogahay aniga hadda intaasoo tiro go-an ma hayo laakiinse ciyaartooydii maxaa la yihahda qaranka ku xaraysnayd oo maxaa la u tababaranaysay waxaa kamid ahaa ayaa la ii sheegay oo ku jiray lay baray inay ahaan ciyaartooy kala timid goboladii ciyaarey gobolada ciyaartooy qaarka ugu fiicnaa oo laga soo qaaday qaar kaloo ay rajaynayeen oo u suurtooy way jiraan noo sheegeen in yihahda maadaama xamar lagu tababaranayay ama waaliduuti ay yirahdaan maya xamar haddeer uma dirayno ilmahana uma dirayno ama ikuba security ahaan dartood u imaan waayey oo meesha u teg waayena way jireen tan kale waxaan aad iyo aad u jeclay intaan ka bixin aan u mahad celiyo maxaa la yidhaha difoosiyaashii ama dadkii maanta taageerayaashii soomaaliyeed oo ku noolaa sababo joogay aan ognahay dad soo qaxay iyagoo ah sax qiiradii iyo sharaftii macalinka soomaaliyeed siay meesha u geeyeen runtii anagoo dhan bay aad nooga qiiraysiisay siduu axmed nuur u sheegayna waxay leetahay maahan inay ka xumaadaan oo ay qalbi xumo u keento in la iska badiyo bowling marka la cayaaraayo waa ama waad badinaysaa ama waa lagaa badin goolasha badanna waxaan ku leeyahay kabas kow maxaa la yihahdaa in daalkii uu ku yimido taas ay tan ugu weyn ay ahayd laakiinse haddana ciyaartan maadaama ahayd hal ciyaar ugu dambeysa haddii hal gool lagaaga badiyo haddii 10 gool lagaaga badiyo labaduba inay isku mid ahaayeen isku mid noqon lahayd eberka hore ku dhamaan lahayd iyo haddii ka badan ku dhamaan lahaydba labadaba markastaba inay hari lahayd waan jeclayn haddiina laga badinaya inaan goolo badan oo kaga badiyeen laakiinse markastaba waa la iska badin karay oo maxaa la yidhaha marmar way dhacdaa laakiinse dhalinyarada aad iyo aad aykan waxaan u ammaanaynaa u hambalyeynayna dhalinyarada soomaaliyeed oo runtii qiiradii wadaninimada ahayd iyo maxaa la yihahda dadaalkii aadka u faraha badan muujiyey tan kale xiriirku isaga wuxuu mudan yahay laftigiisa in maxaa la yihahda lagu ammaano waxqabadkiisa iyo waxtarkiisa waa run oo waa loo baahan yahay maantay dad badan oo soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo jooga wax ku siyaadin kara inay jiraan in waxaa laga faaidaysto maskaxda iyo maxaa la yihahda skilliska maaha maskaxda iyo wax kasta ama dibad ha joogaan ama gudaha jooga in maxaa la yihahda looga faaidaysto qof kasta oo waxtar leh oo wax u tarhaya in laga faaidaysto waa inay la tahay hadee olympicada xiriiradiisaba inay hawlahaas inay rabaan in dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay wax ku siyaadiyaan ama ay ka qaataan wixii wanaaga waa mahadsantahay waxaan rabay axmed maadaama aad ciyaarta fiirsanayso maanta kolley waa la socotay maaragtay waxaad is leedahay maaragtay dhalinyarada soomaaliyeed xagga farsamada ayay ka liiteen mise physicalka ayaa maaragtay ahaa maaragtay dhibaatada horta markaa eegtaan ku sheega kubadda sideedaba yani waxaa loo cayaaraa isku si umaa loo cayaaraa laakiin xagga farsamada isku xirnaashada traininka tababarka hadba sida wax ay u qaataan iyo adkaysiga eebta intaba mid ay tahay marka maanta hadda ayaga badinta waa laga badiyay aan leeyahay yani waxaa looga badiyay physical looga badiyay oo tabardarro darteed looga badi maahe farsamadooda kolley iyo habka ay u cayaareen intaba hadda mid liidata ama mid xun ma ayna ahayn
يعني halftime horetana yani qofkii ciyaarta daawanayay waa maleyn kartaan ku sheegay yani sidii wanaagsaneed oo maxalli lahaa mid uu raaxaystay ama yani uu helay inkastoo gool misleedahay ma aragtay xagga difaaca dhaliil laakiin weerarka waxaad isleedahay Soomaaliya aad u yaraa ma aragtay in ma aragtay kubadda aad dhankaas ma aragtay golayaha Ethiopia taas horta yani intee wax ka qaldanaya ma aragtay fikradaada adiga khibrad ahaan markay noqotaan ku sheegaa labada group labada reerood oo wada dheelayay ma aragtay niman isku standard ama isku awooda ama isku xooga midkoodna ma aha nimankana niman physically iyo farsamo ahaan iyo kulli guud ahaan miday u dhisan ay tahay Soomaaliya farsamadii waa ay haysan ku sheegaa laakiin adkaysiga meesha jira adkaysiga maadaama uu ka maqnaa daraadeed waa dhibaatooyinkan ama waxay ku dhaceen ku sheegaa qaybtii dambe oo ciyaarta ahay laakiin qaybtii hore oo ciyaarta ahay si wanaagsan ay ula qabsadeen si wanaagsan oo ay u ciyaareen ma waa la og yahay maartay waan u jeednay maartay siday wax ahaayeen kulley aniga wish ahaan waxaan maartay aad mahad gaar ugu celinay golayaha oo runtii golasho intaas way ka badnaan lahaayeen hadduu asaga ahaan leen difaacana aad bay maartay u mahadsan yihiin dhalinyaro ahaan gabi ahaanba laakiinse haddana waxa waaye waxaan u maleynayaa maartay hawadana waa dhici kartaa maartay maadaama ay la qabsan dadka Ethiopia tagana ee sheegeen in hawada ay ka gidsan tahay hawooyinka kale ma dhici kartaa maartay taas inay maartay inta dhan markaad eegto horta guud ahaan waxa dhici kara waa hawada waa noqon kartaa ku sheegaa dhulka waa noqon kartaa ciidda iyo dadka meesha taageerayaalka intaba waa noqon kartaa marka waxaan ku sheegaa maanta yani anaga hadda wadankeena labaad Djibouti markay ku ciyaareen waa garan kartaa ama every 90 daqiiqadood ayagoo sida marka haddana muddo dheer oo kasoo wareegtayba ma ayna jirin haddana safar mid ay u tageen ay noqotay meeshii safarka tagitaanka ay u tageen haddana in ciyaartii hawadii shicibki kulli guud ahaan waxaasoo dhan wax ugu shekeeni karaa midda kale coachku uu kasii hadlay waa runtii maanta inkastoona uusan samayn waa laga yaabaa hadda inay fursado u suurto waran coachku wuxuu yidhi Ethiopia hadday intan ciyaarta la bilaaban hadday u malaynaysa inay difaac gali doono difaac ma gali doono laakiin waxaan ku bilaabay the best defense is attack difaaca kiisa ugu fiican waa inaad adigu ka weerartaa marka hore kaasaa difaac ugu fiican inkastoo aan maanta aanan u jeedin oo maxaa la yidhahdaa weerarka ku yaraa laakiin waxaa laga yaabaa hadda siduu Axmed Nuur buu sheegayo ciyaar waxaad ku xisaabtami kartaa adigu markasta qalabkaad haysatid hubka noocaad haysatid baad ku xisaabtami kartaa haysan hub meel dheer gaarisiin kara wax inaad ka isticmaali kartid inaad ku isticmaashid waxaa laga yaabaa qalabkii asagu uu haystay siduu uu haystay inay u arkay in maanta ay u baahneyd un kaliya bal maxaa la yidhahdaa counter attack iyo inuu ku bixiyo laakiinse kolba kaas waa macallinkii iyo farsamadiisa laakiinse waxaan dhihi karaa anigu mar kastaba sida Axmed Nuurna iga hormaray markasta anagu waxaan leenahay waxa Soomaaliya waxaan leenahay guul aan joognaa waxaan maanta in maxaa la yiraahdaa ciyaartii hore oo ka dhacday Djibouti ee soo dhamaatay midaan waxaa la yiraahdaa anagu aad u rajo badnayn oo ka xunaay laakiin haddana inaan maanta intaas wadada Soomaaliya waxa kaliya intaas wadada Soomaaliya ay ku faraxsan isu keeni kara waa sports maanta dadkaas Ethiopia jooga oo ayagu soo qaxay meesha jooga si u faraxsan yihiin iyo maxaa la yiraahdaa ka muuqata adiyaabaysi wax kale oo sameyn kara cid wax kasta loo sameyn kara ma jiraan sportiga ahayn marka waxaan rajeynaynaa haddii ilaa yiraahdo sportiga in maxaa la yiraahdaa meeshan laga sii horumariyo oo waan ogsoonahay maanta waxa way moogtahay burbur badan badan kusoo jiray dowladda hadda waxyaabo kale ayaa priority u ah sidaan wada ogsoonahayna wiisha waxa way sportiga Africa ama adduunka soo karahay 8% ama 95 waxa gacanta ku hayo maalgeliya waa dowladahooda markay ka maqan tahay maalgelintii dowladdu ay ka maqan tahay sportiga ma aha kaliya ciyaarid qaran la ciyaarayo ma waa wax dhameystiran oo maxaa la yiraahdaa laga soo bilaabo hoose laga soo bilaabo iskuulaadkii degmooyinkii waxa dhan laga soo bilaabo ayuu u baahan yahay facility ama garoomada u baahan tahay qarashaad meel lagu ciyaarayo marka sports aan budget balahayn wixii kale adduun iyo meel kale laga helo waa waxyaabo yar oo dheeraad ah fadli ilaahay dheeraad way maaha laakiin wixii lagu talagalay horumarinta sportiga loogu talagalay maaha sportiga wadanka isaga horumarinaya isaga ama wadamada horumarayna 95-98% wuxuu ka helaa maxaa la yiraahdaa budgetkooda waa sponsorships iyo hay-ado maxaa la yiraahdaa dacaayadaadkaas ku sameysmaa marka anigu labadiiba ma hayno marka intaan aan la sameynaya waxay tahay wax aad u weyn hadda malihin anagu hadda dowladda wax kuma canaanayno kuma dhaliilayno maxaa anaga wada oga dowladda budgetkeeda iyo siduu yahay laakiinse in lagu daro waxyaabaha budgetka priority-ga sidii sportiga loo horumarin lahaa dhalinyarada maxaa la yirahdaa waxyaabo badan yuu kasoo jeedin maanta waxaan hubaa oo laysoo sheegaya xamar oo dhan meel kastoo tagtay sida u buuqsan u mashquulsan dhalinyarada ay u mashquulsanayeen ciyaarta ay u daawanayaan wax kale oo saas oo kale u sameyn karaan aysan jirin aysan sportigan sidii marka dhalinyarada fursad loogu siin lahaa waxyaabaha xun looga soo leexin lahaa in loo sameeyo goobihii lagu ciyaari lahaa iyo wixii si budget in loogu talagalo horumarinta sportiga si qaranka Soomaaliyeedna uu helo ciyaartooy wanaagsan oo mustaqbalka hadda waxaan sameynaa waa participation iyo ka qaybgal
haddaan u baahannahay inaan maxaa la yidhaha guula keeno waxaad guul beertaad falato saad u falato waxaad gashataa lagala soo baxaa ma filaysa adoon waxba falan oo beer waxba ku ridan inaad iska gurato iyadoo kuu bisil film maysi marka waa inaan la mariyo marka waan gartay axmed maadaama aad tahay aad kamid tahay qurba joogta soomaaliyeed bal maxaad is leedahay waa looga faa'iidaysan karaa maaragtay dadka dhalinyaradan hadda qurbaha joogo iyo maaragtay kuwaas sidee la isugu xiri karaayo maaragtay dad maaragtay quality loo heli karaa maadaama ogna dhalinyaro badan oo hadda naadiyada heerkood u dheelo Soomaaliya saaxiibkay duraan hadda uu hadda wuxuu yiri yani maaragtay meesha isku xiraashada iyo wixii kulli guud ahaan horta waxa horta isku xiraashada iyo waxay kulli guud ahaan horta mid ayaga laga rabo waxa jirta wadanka xataa dhiman ciyaartooy ah oo fara badan oo wadanka ku nool jira oo yani farsamadii iyo wixii iyo taladii iyo kulli mid in loo dhiibto ama lagala tashto ay haboon tahay dibadda waxaa jooga sidoo kaleeto dad maxaan ilahaa rubacda oo maxaan ilahaa ayagana sidoo kaleeto ciyaaraha yani maaragtay qaab u yaqaan waxaa jirta dhalinyaro kaleeto maanta yani markaad aragtay physically ama caafimaadkooda ama wuxooda uu fiican yahay macallimiin fiican banaanka waa ay joogtaa sidoo kaleeto marka haddii la tashigii iyo wixii iyo maamulkaas iyo isaga ahay saaxiibkay duraan aan ku faraxsanahay inuu ku sheegay yiri maaragtay in yani waxaas oo dhan mid loo wada xiriira inay noqotaa haddii xiriirkaas mid yimaado uu noqdaan ku sheegay yani waxay noqonaysaa mid horumar sportska mid u gaaraa inay noqoto laakiin marka arrimahan oo dhan guud ahaan aragti ahaan waxay arrintan oo dhan ku xiran tahay yani waxay ku xiran tahay olombikadii iyo waxay ku xiran tahay maxaan ilahaa laakiin labada dhanba maaragtay hal dhan keliya ma aha labada dhanba way ficnaan lahayd inay xiriirka sameeyaan barnaamijyo kale labada dhan waxa u haysan karin cali aan ku sheegay labada dhan waxaynu u haysan karin dadna dad qurba joog ah waaye oo maamulkooda yani maaragtay qurbahaas iyo waxeeda u yahay dadna waxaa waaye dadkii maamulka wadankii calankii dadkii matali lahaa taas waxaan rajeynaya insha allah barnaamijyo kale ayaan ku falanqeynana hadda waxaan rabnaa oo keliya haddadan waxaan ka hadlaynay sidee maaragtay ilmaha ubadka soomaaliyeed ee qurba jooga ah oo inta joogo aan ognahay qaarkood hadda inay naadiyadii maaragtay oo heerka koowaad ah ay u leelayaan ilmahooda yariiska ah منها سيدي لو قفا إذا سكر عرفت أنا قرب جوجتك كتر سنة أنا قرب جوجتك كم يعني ما لو كوفي دون دوران كشنا ما أولم بكذا كشنا قرب جوجتك كشرو قرب أحمد نور يهوليس دمبو ضدك معلي لما يدينا كم هاي صح مركب واحد عندي لا فيري وصح دان لو تشن ما أنت واحد جودة الصومالية فربضان أو معلي واحد ما أنت الصومالي واحد لقوته كبير واحد لقوته معي لو قود درينا ودتك تبدأ جوجا هدي تاي مع إيه لون بدأ جوجا دي برشات دي تاي دي دتك سبورتي كوسو جري كل أي كار دتك لوجا بهاي هاي وي وحيابا دقوم من زمان أسلحة تحريرك وحيلتها هاي هذا جود يقولون بكذا أم حرير ديس حرير ده يسمى كل جري دتك بدأ جوجا مجرو مركا لكن معناه هذا معها ودتك أنت وقفي على دوي معناه هذا معها لكن ما دورنا هالمرة لما ما عملوا قال كرر لما ما عملوا كرر marka qof kasta oo Soomaaliya markas uu joogo ama guud ama mas'uul ahaada ama aysan haynin waajib saaran baa jira maanta qarannimada Soomaaliya si loo wada difaaco loo hagaajin lahaa in hagaajin marka waxaan rabay oo kaliya inaan dhaho xiriir kubadda cagta oo kale hadda dad buu soo xilsaartay dibadda jooga inay kala talayaan oo kala shaqeeyaan marka dadkaas waxaan dhihi lahaa macnaheedu ma aha maanta ilmo aan maxaa la yiraahdaa professional ahaan u ciyaareen oo fara badan Soomaaliya way joogaan marka ciyaartooyda loo raadinayo oo rabo in qaranka lagu daro in la rabo kooxaha wadamadan aan ku noolnahay Europe ama North America waxa laga yaabaa ciyaartooy Soomaaliyeed oo professional oo kooxaha professional oo ciyaar inay jiraan kuwa wax ku siyaadin kara waa kuwaas way kuwaas in la raadiyo laakiin ilmaha sabtiga iyo xadda ciyaara waan nidis bay noqonaysaa maana laakiin in wax badan siyaadinayo maadaama gudoomiye aad ogtahay maaragtay adiga aad kamid tahay qurb joogta aad imaatay inta waan ka xumahay in xiriirku kubadda cagta inta ila fadhin caawa laakiin su'aalaha aan qabno waxay tahay maxaa diiday dhowr ciyaarood ilaa iyo dhowr iyo 10 ayay marayaan hadda ani ogaan sheega waxaan jeclahay barnaamijyo kale oo gaar ah inaan u sameeyo si aan maaragtay aan u iftiimiyo ciyaaryahanadaas iyo meesha ay joogaan iyo maaragtay sida yihiin maxaa diida maaragtay dhalinyaradaas in contactyadeeda la sameeyo maxaa cusleeyay xiriirka ma anigu fiiri xiriirka waa ku sheeg xiriirka hadaan guud ahaan ka soo qaaday dad bay u xilsaareen Yurub jooga ayaga xiriirka dadkii marka laga rabaa in maxaa dhalinyarada Soomaaliya waa ogahay dhowr dhalinyaro badan oo ku jirta kooxo ku jirta professional in ciyaartooydaas la raadiyo in maxaa ayagu inay rabaan inay qaranka u ciyaar koob badan waxa jira wadamo kale u ciyaara duraan horta waa fiican yahay soo hadda wax uu sheegaya ku sheegay yani maamulkan hadda uu leeyahay yani maamul loo xilsaaray oo xiriirka Soomaalida kubadda cagta u xilsaareen waa maamul hadda xilligiisa uu yahay aan ku sheegay yani lagama joogaan ku sheegay muddo 5 bilood xataa mid laga joogo ma mid aan ku sheego aniga hadda ku hor fadhiyo for example iyo duraan anagoo yani isku urur ah
waxaa dhacday inaan u magacownen inaan u magacownen aan ku sheegaa badidina ku sheega inaan u magacownen aan ku sheegaa urur oo Soomaaliya inuu wax la qabto la rabay ururka sooska la dhigi jiraa ku sheega saas ay tahay ku sheega wax qabadka ama xiriirkeeni wax ka liibaanay waxa ka jira hadda duraan hadda xiriirkii duraan markuu meesha naga tegay xiriirkii isku xiraajinaysa hadda miduu noo socon waa ku sheega marka waxaa la rabaa nimankan hadda xiriirka ama maamulka waa joogaan laleeyahay for example waxaa fiican aan ku sheegahaa waqtiga gabagaba waxaa fiican aan ku sheega in xiriirada ay la suubiyaan aan ku sheega halkayga dad alla cidi sports iyo cidi kan ayda ku sheega laakiin qawda maqashay waxnaha uu qaban maayo hadda taas waxaan jeclaan lahaa maaragtaa critic iyo maaragtay eedeen iyo mid ku taag waxa waaye maaragtay waa ogaan meesha dhigtay waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan wada shaqeyn iyo maaragtay maamul in soo socdaan jeclaan lahaa waxaan maleynayaa idinku ka faa'iideysanayo maaragtay mid sakano iyo maxaad halkan maaragtay maadaama aad dadka imaato Mareykanka si fiican lagu soo dhaweeyay adaan kugu horeeyo yaad halkan maaragtay aad ka salaami lahayd wallahi horta waxaan salaama dhamaan reer Atlanta oo gudoomiye uu yahay Dr. Ali Cusman waxaan salaamayaa maxaan ilaahay meesha la leeyahay Kentucky oo nin Xamza la joogo maxaan ilaahay petrolka mid uu ciyaar jiray ay tahay waxaan salaamayaa maxaan ilaahay Houston la joogo Axmed Cali la dhaho horseed isla uu ciyaar jiray yani maaragtay urahan waxaan ayada sidoo kale aan salaamayaa maaragtay Canada dad joogay oo maxaan ilahaa fara badan oo ayagana maxaan ilahaa si aan malayn karin ugu soo dhaweeyay ayagii reer Atlanta guud ahaan iyo waxa kale toon gaar ahaan aan u salaamayaa ku sheegaya reer Canada marka aan leeyahay yani macna ahaan waxa waaye yani odayaashii meesha sportska ah oo dhan oo meesha joogo waxaan maleeyahay anoo ka xun maaragtay inaan hadalka ka qabsado waa gabagabo bal duraan maaragtay adoo soo gabagabeynaysid maaragtay aad baad u mahadsan tahay run ahaantii anigu waxaan aad iyo aad waxaan ilaahay ka baryaa ummadda Soomaaliyeed anagu xalkeenu sidaan dhaafsan dambe inuu na gaarsiiyo midda kale waxaan aad ugu hambalyeynaya dhalinyaradii Soomaaliyeed oo maanta maxaa la yiraahdaa intaas dadoo Soomaaliya isu keentay maskaxdooda iyo qalbigooda isu keentay waxaan kaloo jeclaan lahayn hadii ilaahay yiraahdo in lagu wada dadaalo anagoo wada Soomaali dawlad iyo shacab iyo dadka dibadda joogaba inaan ka wada shaqeyno anagoo gacmaha haysanno sidaan waddankeena u horumarin lahayn guud ahaan gaar ahaan dadka bahda sportiga inay ka shaqeeyaan in maxaa la yiraahdaa sportiga Soomaaliyeed oo isleeyahay sportiga waa waxyaabaha ugu wanaagsan oo ummadda isdhexgalkeeda iyo isu keenkeeda qalbiga ummadda Soomaaliyeed midayn kara inaan ka wada shaqeyno dibadda aan joogno midda kale dadka dibadda jooga inay maxaa la yiraahdaa ay aad iyo aad ugu faa'iideeyaan inay gudaha joogaan aad ba u mahadsan tahay intaas waxaa maaragtay inooga eg barnaamijkeena ciyaaraha oo caawa si toos aan ugu soo tabanayna telefishinka qaranka Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada London xagga farsamada waxaa iga caawinayay Abuukar Maas iyo Boocane waa anigoo ah Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono nabadgelyo